arrintaa laascaanood ka socota oon halkan damco inaan ka idhaahdo. Mahmaahdu waxay ahayd qayladu orgaca ka weyn. Waxaa halkaa jaanis ka helay international terrorismkii baa jaanis ka helay. kuwii kale awalba Soomaaliya necbaa yaa jaanis ka helay. waa taa kuwii aynu walaalaha ka dhiganaynay ilaa Etoobiya ilaa NFD iyo wixii aanu xoreynaynay halkaa ay nooga soo bu-ayaan la leeyahay qaarimka waaba lagu qabtay iyagoo in action ah oo dagaalka ku jira. aduu arrimahani taariikhdooda iyo ku noqoshadooda iyo canaantoodu waa mar kale. waxaa jira dagaal kasta iyo arrin kaloo kastoo la gelayo laba qaybood buu leeyahay. qaybta waa civilian, waa dowladdii oo siyaasiyiintii iyo diblomaasiyaddii bay wadaan. qaybta kalena waa cududdii ciidanka. waxaa horeysa taa civilianka inta badan, diblomaasiyad baa wax lagu wadaa dabeetana iyo aragti dheer iyo maxaanku dhaha sir arrimo badan oo xogaalood oo la haysto la ururiyey kayd. taasi marka ay shaqayn weydo waxaa loo banneeyaa oo leyrhka greenkaa la siinayaa waa ciidankii. civilianka leyrhka casaaba haya ina dhaqaaqan maaha. halkaa innaka intii laascaanood la joogay waxbaa isku khaldamay. nimankii civiliankii waxay noo sheegeen in nima garaad ah oo qaar la ogyahay inay ku jiraan liisaska terrorismka, qaarna ajendahooga la ogyahay inay maleeshooyinkoogii u ogolaadeen. korna waanu ogolaanay bayna yidhahdeen, kol annagaa galbinayna bayna yidhaahdeen. dee hadday galbinayeen oo dhilkooga laguma rasaaseeyeen. aduu halkaa waxaa ka dhacay kubaddu halkaa way ka dhacday. khalad baa halkaa ka dhacay. intii markaa meesha lagu jiray dee balaan baa la waday. dagaalkaa dheeraaday ee burburka keenay waxaa weeyaan ciidankii gacmaha laga xidhay. nimankii markaas civilianka ahaa isagoo leyrhkii casaa ku soo baxay iyo iska sii wateen. milatarigina waxay yidhahdeen iyagoo garin haysta ha soconina. almuhiim taasi iyaduna khaanada waxay gelaysaa canaanta iminka looma jeedo. maanta halkan waxaa ka socda waxaa weeye waddankii Somali Republic hala burburiyo. marka hadalkalkiisa loogu tago ee lasoo gaabiyo waddanka hala burburiyo. markaa wixii loo soo maray wuxuu yahay wixii la geliyey halku joogo taas kaga sheekeyn mayno. ta kale waxaad isweydiinaysaa waynaa maxaa waxaan oo dhan maanta keenay? maxaa keenay maanta 30 sannadood maxaa maanta keenay? waxaa maanta keenay cadowgii waxay yidhaahdeen international maxaanku dhahdaa agreements bay Somaliland gashay, adduunyadii bay la xidhiidhay, way fakatay. waynayna fakan ama gudaheedu maxaanku dhaha aan khalkhal gelino ama aan dagaal boolo maxaanku dhahda waa ku cadday dagaalkaba ku caddaystay. maanta marka waxaan soo jeedinayaa reer Somaliland marka siyaasiyiinta laga reeb xagla toosi waad maqlayseen maanta. Axmed Ismaaciil Qudus half baked buu ahaa with a bad history. sida ay tahay haddana waa odayaal reer Somaliland oo siyaasiyiina. waxaan maanta usoo jeedinayaa Somaliland min koone ilaa koone iqliimka gebigiisa inaynu nahay meesha qudha iftiimaysa in nabad ka jirto, cid ay ka qarsoon tahay ma jirto. iftiinkaa ha daminina, meel uga soo wada jeesta. xisaabi waa inoo hadhow. oday baa waxaa la yidhi iyadoo la shirayo uu kacay uu baanayay. deetana waxaa la yidhi neef baa ka timo markaasaa la is eegeegay. wuxuu ku yidhi aniga dabadeeda isku naallaaye waxaan baanay ka soco weeye. maanta in waqti lagu lumiyo maaha keeriya kanaa khaldan iyo keer baa khaldan. halkay taagan tahay waxa weeye jiritaankeenni ma ilaashanaa bise waan baabaanaa. jawaabtuna waxa weeyaan baabi'i mayno.
waan ilaashanaynaa. gacan qura hala noqdo, hala isku yimaado. maxaan ku idhahdaa siyaasad iyo xisaab iyo wax kale xagga haynoo yaalaan. waddankaa la difaaco. walaalihiin reer laascaanoodna wanaag unbaa loo hayaa. maanta halkaa waxaa sidii loo dhowrayey wuxuu noqday barayskii in ciidamo dhan dhabarka laga jabiyo si iyaga loo dhowrayey, milashiyooyinkooga loo dhowrayey, madaxdii dhanida meesha tagta ay hodheelka ay ku jireen ay ku rasaaseeyeen, ay idhaahdeen waxaa soo dhacay haddana ciidanka ka saara. wax walba loo sameynayey, wax walba oo la ogaa in terroriist kugu dhex jiro iyo niman xag jiray. aan la ogeyn waa macno kale noqon lahay, la ogaa. marka walaalayaal idinkuna meel aad tegaysaan ma jirto. dadkaa wada dhashay meel qora ilaah ku wada abuuraynu nahay. caqli hala keeno. tolaayey iyo telefoonka faramaajo 24 hours idin xidhan waxba idin geeni maayo. gaduu joogaa oo gadu wax ka samayn waaye faramaajo. telefoonka faramaajo iyo lacayru dabad ha laga soo ururiyo maxna idin yeelan mayso. meel fog eega, big pictureka eega, taariikhda xataa eega. daraawiishti baad tidhaahdaan, daraawiishti dadkii xawaad garanaysaan. idinka qurmaydahan daraawiish waa la idiga horreeyey xataa dhismeygii. markay jabtayna kuwa aad ku ordaysaan leedihiin waxaanu hartay iyo kuwan kale aad caaysaan sidii idii kala galeen iyadoo dib ugu noqda. dad walaalo aan ahayn, meel kale la kala tegi maayo. wixii khaldan waa la adres garayn. dib ha loo soo noqdo, yaa la degdegin. dowladdana maanta dowlad iyo dad manihiin gacan quraynu nahay. waddanka badbaadadiisa iyo dhinaca ilaa Etoobiyada balagaan ilaalinayna nabadgelyadeeda yaa maanta hub soo siinaysa oo balaayo siinaysa. waddanka ha la badbaadiyo. waddanka meel qura ha looga soo jeesto. markaas wax walbana inuu hagaagayaan. intaa yar baan ku biiri lahaa. wabilaahi tawfiiq. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.